Bismillahirrahmanirrahim. Waxaynu maanta dhiganaynaa casharkii shanaad ee chapterka electromagnetic induction. Waxaynu hore u soo qaadanay xiisadda hore soo qaadanay casharkii afraad oo lagu aragnay applications of electromagnetic induction. Waxaynu qaadan doonaa casharkan waxa weeye qaybtii labaad ee chapterka. Markaynu chapterka bilaabaynay waxaynu sheegnay laba hab ama laba way ee lagu soo saari karo ama lagu dhalin karo EMF ama current lagu dhalin karo. Labada hab oo kala ahaa waxa la yiraahdo generator effect iyo kan labaad oo ahaa transformer effect. Marka qaybtii koowaad ee chapterka inta hore waxay ahayd generator effect. qaybtan dambe ee maanta bilaabi doono waxay noqon doontaa waxa weeye transformer effect. Transformer effect ama waxa la yiraahdaa change in a magnetic field in la bedelo ama change lagu sameeyo magnetic field. Change in magnetic field in marka qaybta labaad waxay noqonaysaa waa by transformer effect ama change in a magnetic field in la bedelo magnetic field ama lagu sameeyo changing si current loo dhaliyo qaybtan ama loo sameeyo production of current waa in isbedel lagu sameeyaa ama change lagu sameeyaa magnetic field. oo magnetic field waa in isbedel marka la leeyahay waa increasing or decreasing in la badiyo ama la yareeyo. habkan waxa la isticmaali doonaa hab la yiraahdo mutual induction la yiraahdaa habka la isticmaalayo lagu dhalinayo current-ga ama EMF-ka iyadoo la isticmaalayo magnet. marka habkan waxa la yiraahdaa mutual induction. Soomaalihan waxa la oran doonaa isku saaqid. Mutual induction Soomaalihan waxa la yiraahdaa isku saaqid. habkan isku saaqida la yiraahdo marka waxa lagu qeexayaa mutual induction is a change in a magnetic field. waa change-ga ku yimaada magnetic field-ka ama isbedel ku yimaada magnetic field-ka hal coil ama hal duub kaas oo ku saaqi doona current to another coil labaad. haddii sida diagram-ka ka muuqata aan soo qaato laba coil, labada coil waxa weeye tan koowaad waxa la yiraahdaa coil-ka hore waxa la yiraahdaa primary coil. inay primary coil tahay waxa lagu gartaa waxa ku xiran source of current ama battery baa lagu xiraa. tan labaadna waxa la yiraahdaa coil 2 waa secondary coil. secondary coil-kuna source of current mara laakiin waxa ku xiran galvanometer oo saacadana maxaa lagu ogaan jiray inuu current ku dhashay coil-ka baa lagu ogaanaya. marka habka la yiraahdo mutual induction-ka waxa isbedel lagu sameyn doonaa magnetic field-ka coil-ka koowaad hadduu isbedel ku dhaco ama change uu ku yimaado wuxuu ku saaqi doonaa current coil-ka labaad. marka waxa lagu qeexi doonaa mutual induction is a change in a magnetic field. waa isbedelka ku imaanaya magnetic field-ka hal coil kaas oo ku saaqaya current ama ku dhalinaya maayad coil-ka labaad. coil-ka koowaad ee dhalinaya isbedelka magnetic field ku dhacayo waa primary coil-ka. 2 ku dhalinaya waxa la yiraahdaa secondary coil. coil-kan marka haddii switch-ka sida ka muuqata waa open oo wax current iyo maraya ma jiraan, laakiin haddii switch-ka laga dhigo on ee close switch lagu sameeyo current waa wuxuu mari doonaa primary coil-ka. current-ga sidoo naqaanona waxa weeye current wuxuu sameeyaa haddii current soconayo current-gaas coil-ka wuxuu ku abuuri karaa ama soo saara current-gu magnetic field. oo current produce magnetic field wuxuu oran jiray electromagnet. current wuxuu soo saaraa magnetic field. current-ga hadduu marayo wire magnetic field soo saara. magnetic field-ka ay soo saartay marka current-ga marayo coil 1 marka switch-ka close laga dhigo haddii magnetic field-kaas ay jaraan coil-kan dhinac yaala ee secondary coil-ka ama secondary coil-ka coil-ka labaad waxa ku saaqmi doona magnetic field waxa ku saaqmi doona current waa ku dhalan doona induce current. current-ga ku dhasha wuxuu ka muuqan doonaa galvanometer wuxuu sameyn doonaa deflection. galvanometer wuxuu sameyn doonaa galvanometer-ku deflection. bal aynu aragno qaybta bulakanayo waxa la yiri haddii isbedel lagu sameeyo when a current flows haddii current marayo ama qulqulayo through the first coil oo labada coil waxay isu dhinacayaan sida diagram-ka ka muuqatay side by side weeye. haddii marka coil-ka koowaad ama first coil-ka waxa la yiraahdaa primary coil-ka waa tan uu ku xiraya source. haddii current-ga marayo current maro coil-ka koowaad waxa dhici doona current-gaas wuxuu dhalin doonaa set up
magnetic field around it wuxuu ku dhalin doonaa coilka magnetic field buu ku dhalin doonaa magnetic field-ka uu ku dhaliyay hadday gooyaan coilka labaad waxa coilka labaadna ku dhalan doona maxaa weeye current marka when a current flows through the first coil the magnetic field is set up around it wuxuu ku dhalin doonaa current-gaas oo magnetic field buu ku dhalin doonaa first coilka ruuxadeeda if this change field changing haddii laakiin marka uu jiro isbedel ku yimi field-ka oo field-ka dhashay haddii markii current-ga la daaro switch on laga yiraahdo ama la daaro field baa dhalanaya field-kaas marka muxuu sameeyay magnetic field-kii ay lahayd coilka koowaad waxa lagu sameeyay changing oo wuxuu ka siyaadaya markii current-ga la daaro from 0 to maximum marka maxaa ku dhacaya change of magnetic field change of magnetic field-kaas wuxuu sababi karaa inuu coilka labaad ku saaqo current ama ku dhaliyo current marka if this field changing haddii isbedel ku yimaado field-ka oo field-ku goormuu isbedelaa field-ku wuxuu isbedelaa by the current turning on or off or changing field-ka coilka koowaad wuxuu isbedeli karaa saddex buu isbedeli karaa in current-ga la daaro marka hore hadduu dalsanaa haddii la daaro field change baa dhacay haddii current-gu daarnaa oo la damiyo waa marka labaad haddii current-ga isagoo aan la daarin lana damin lagu sameeyo changing wuxuu noqon karaa in current-ga la increase gareeyo ama la decrease gareeyo saddexdaasuba waxay sababi karaan inuu isbedel ku yimaado magnetic field-ka coilka koowaad marka if this field is changing field-ka ku dhalanaya coilka koowaad duu isbedelo oo maxaa bedeli karaa by current turning on in current-ga lagu sameeyo on hadduu switch on off ahaa on haddii laga dhigo la daaro ama current-ga la damiyo isagoo daarnaa ama isbedel lagu sameeyo waxay keenaysaa maxaa weeye EMF is induced in second coil inuu EMF ku saaqmo ama ku dhasho second coil marka waxa shuruuda inuu EMF ku dhasho coilka labaad inuu isbedel magnetic field jiro isbedelka magnetic field kuna goormuu dhici karaa markii current-ga coilka koowaad la daaro ama la damiyo ama la bedelo saddex mid uu dhici karaa this effect-ga ama saameyntaas ku dhalanaysa labada coil ka dhaxaysa ee isugu saaqayaan current-ga waxa loo yaqaanaa mutual induction bal eeg diagram-kan hoose si fiican buu inoo tusinaya diagram-kan hoose waa kan labada coil marka koowaad laba coil side by side soo barbardhigo kan waxa la oran doonaa primary coil kana waxa la oran doonaa secondary coil kan switch-kiisu waa off marka hadduu switch-ku off yahay wax current oo dhalanaya ma jiraan mar hadduusan current dhalanayna magnetic field ma jiro ilaa current-ga maxaa soo saara magnetic field-ka mar hadduusan magnetic field jirinna coil-kan labaad wax current ku saaqmaya ma jiraan no EMF induced waa marka koowaad waa markay saa wada dadsan yihiin laakiin switch-ka haddii aan daaro on ka dhigo closer-kaas muxuu keenayaa closer switch marka dhigo saddexdii istaamood aan sheegaynay haddii switch-ka closer lagu sameeyo ama la damiyo ama la bedelo isbedel baa ku imanaya magnetic field-ka coilka koowaad isbedelka magnetic field coilka koowaad ka yimina wuxuu ku dhalinayaa coilka labaad magnetic field coilka labaad wuxuu ku dhalinayay inducing EMF and electromotive force buu ku shaqeeyaa voltage buu ku shaqeeyaa coilka labaad marka haddaan ku sameeyo tusaale ahaan waa kan koowaad ee closer daan ku sameeyo switch-ka marka closer ka dhigo current baa wuxuu ku dhalan doonaa current flows through the coil current-ga coilka ku dhashay current wuxuu leeyahay oo soo saari doona set up magnetic field buu dhalinaya oo coil ku dhalinaya magnetic field-ka coilka ku dhashay primary coil ku dhashay haday jaraan coilka labaad oo ah secondary coilka waxa ku dhalan doona secondary coilka current baa ku dhalanaya current-ga ku dhasha wuxuu ka muuqan doonaa galvanometer-ka oo wuxuu sameyn doonaa deflection-kiisuna ama current-ga direction-kiisu wuxuu opposite ku yahay ama dhanka galvanometer-ku qalloocsamay opposite ku yahay kii hore ee coilka koowaad current-ga maraya coilka koowaad current-ga maraya hadduu u socdo clockwise kana muxuu socdaa anti-clockwise coilka labaad ku dhalanaya wuxuu u sameyn doonaa galvanometer-ku 0 ka tagaya wuxuu aadi doonaa to the right halkaasi ku qoranta EMF is induced the pointer deflects pointer-ku wuxuu sameyn doonaa waa qalloocsamaya and immediately goes back to the 0 laakiin dhaqso wuxuu ku soo noqon doonaa gadaal ugu soo noqonaya 0diisi then misana sawirka saddexaad marka eegtid coilkii switch-kiisu on closer-ka ahaa haddaan off ka dhigo markaan off ka dhigo current-gii baa go'ay
coilka koowaad maraya ama primary coilka maraya current-gaas markuu go'o current-gu isaga dhalinaya magnetic field coilkana waxa ku dhici doona decrease-kuna waa changing isbedel baa ku dhici doona hoos u soo dhacaya markuu goes off samaynayo uu damayo ama go'ayo buu wuxuu soo goynayaa hadduu soo gooyo coilkii labaad ama secondary coilka soo gooyo wuxuu ku sababi doonaa current induced current ku sababaya markuu sii dhimanayo ee sii socdo wuxuu soo jarayaa coilka labaad buu jarayaa markuu sii jarayo wuxuu ku dhalan doonaa EMF ka ama current-ga ku dhasha wuxuu opposite ku noqon doonaa waxa weeye kii hore ama coilka hore markii on-ta laga dhigayo ama close-ka laga dhigayo kii dhinayo opposite ku yahay oo kan wuxuu qalloocsanaya right kan wuxuu qalloocsan doonaa lefty kan wuxuu current-gu wuxuu wareegayay anti-clockwise kan laakiin wuxuu wareegi doonaa clockwise direction markii on laga dhigayna current-ga dhalinaya wuxuu ahaa anti-clockwise markii off laga dhigana current-ga dhalinaya wuxuu noqon doonaa clockwise opposite isku yihiin ama kan markuu right u qalloocsamayay kan wuxuu qalloocsan doonaa lefty halka maxaa ka muuqda markii kan coilka current-ga la jaro EMF is induced the pointer deflects opposite direction and immediately back to the zero wuxuu qalloocsamada dhanka ka soo horjeeda kii hore oo marka on-ta ama close-ka lagu sameeyay marka halka sida ka muuqata diagram-kuna ka muuqata markii switch-ka laga dhigo close EMF waxa ku dhalan doona magnetic field baa ku dhalan doona coil-kan magnetic field-ka coil ku dhashay muxuu ka yimi macnaha labada xaaladood ama labada case kan koowaad oo close-ka ah markii current-gu daarmo magnetic field-ku waxay sameyn doonaan increase from 0 to maximum ila markaas current-ga maraya current-ga magnetic field-ka dhalinaya marka maxay ka siyaadayaan from 0 to maximum wuxuu ka siyaadaya ka imaanaya from 0 to maximum marka changing baa jira magnetic field-ka maxaa ku jira changing ila marka on laga dhigo magnetic field-ka changing baa ku dhacay kadibna hadduu magnetic field-ka change ku yimi magnetic field-kaas waxay jari doonaan coilka labaad marka maxaa ku dhalan doona current marka labaad ay ku dhalan karaan waxa weeye uu change iman karo isbedel iman karo markaan damiyo coilka waa xaaladda labaad markaan gooyo current-ga markii la gooyo current-ga wuxuu sameyn doonaa from decrease from maximum to 0 therefore hadduu current-gu siyaado magnetic field-kii ku dhalanayo coilka koowaadna change baa ku imaanaya change of magnetic field hadduu jirona coilka labaad maxaa ku dhalan doona current change-kuna waa change-kee waa from maximum to 0 uu yaraanaya waa sii go'aya magnetic field-ku magnetic field sii go'ayana muxuu keeni doonaa maadaama isbedel jiro magnetic field ku yimi current baa ku dhalan doona coilka labaad marka shuruudu waxa weeye in current ku dhasho coilka labaad ama secondary coilka uu shuruuda ku xiran waxa weeye current-ga maraya coilka koowaad waa in lagu sameeyaa switch on waa in la daara ama la damiyaa ama la bedelaa daarida iyo daminta iyo bedeliddu maxay keenayaan magnetic field-ka current-gu dhalanaya inay isbedelaan markii change of magnetic field ka jiro primary coil-kana secondary coil-ka waxa ku dhalan doona current induced bal halkan qoraalkan ka eeg qoraalkan wuxuu sheegayaa saddexdii labada u dambeeyay fasiraya as primary coil oo coil 1 and above coil-ka xagga sare inuu ka muuqdo diagram-ka koowaad ku aragnay is switch on markii switch on laga dhigo an EMF marka switch on maxay tahay current-ga la bedelay current-ga uu isbedelay maxay isbedeli doonaa magnetic field-ka coil-ka uu isbedelay marka haddii switch on lagu sameeyay EMF baa wuxuu ku dhalan doonaa coil-ka labaad an inaanada coil oo second coil-ka but EMF-kaas goormu ku dhalanaya waa waqti kooban buu ku EMF-kaas soconaya wuxuu socon doonaa only for a fraction of second wax second ka yar oo markuu inta changing-ka ilaa current-gu wuxuu ka siyaadayaa from 0 to maximum change of current on marka la yiraahdo current-gu siyaadaya maxaa la siyaadaya magnetic field-ki baa change ku dhacay magnetic field-ku markuu current-gu highest value gaaro magnetic field-kuna highest gaaro therefore marka change ma jiro change hadduu jirinna wax magnetic field ku saaqmayaan coil-ka labaad marka goormay ku saaqmayaan coil-ka labaad waxay ku saaqmi karayaan marka fraction of seconds kaliya buu ku dhalanaya effect-ga waxa la mid ah ay hore u soo qaadanay markii duub ama coil magnet la geliyo pushing lagu sameeyo ama gudaha loo gasho magnetka marka la gasho magnetkaas maadaama magnetic field leeyahay socodna uu sameeyo waxay ku dhalinayeen coil-ka induced current laakiin induced current uu intee soconaya inta coil into current uu magnetku galayo coil-ka very fast marka loo gasho the effect is equivalent to pushing a magnet towards the coil very fast in si dhaqso loo galiyo coil-ka very fast
marka waa kan if the current in a fast coil current ka muuqda fast coil ka current ga yaala hadii current ga yaala fast coil ka coil ka koowaad ka jira ama primary coil ka jira uu gaaro constant uu noqdo steady value constant meesha uu sareysa uu se isbedel sameeyay hadii current uu isbedel sameeyay there is no inducing current wax current ku saaqmay ma jiraan in the second coil coil ka labaad ama secondary coil wax ku saaqmay ma jiraan sababta uu saaqmi waayo waxa weeye because there is no field change oo shuruudu waxa weeye field change kuna muxuu ku xiran yahay current change oo current waa inuu yahay switch on switch off ama changing laakiin haduu steady value qiimo go'an uu noqdo current magnetic field kuna waa constant haduu magnetic field ku constant yahay oo uusan change jirinna wax current ku dhalanaya ma jiraan coil ka labaad laakiin maxay shuruuda tahay wuxuu ku dhalanayaa current coil ka labaad ku dhalan kara ama secondary coil ku dhalan kara markii magnetic field ka primary coil ku isbedelayo primary magnetic field ka primary coil ku go'an uu isbedeli kara markii current ga la daaro ama la damiyo ama isbedel uu sameeyo laakiin haduu current constant yahay wax current wax isbedel magnetic field ma jiraan mar haduu magnetic field ku isbedelayna coil ka labaad wax current ku saaqmaya ma jiraan there is no induced current as kan labaad qodobka labaad as primary coil ka koowaad primary coil ka is above si diagram ka saddexaad ka muuqata is switch off la damiyo waa kan opposite-kiisa switch off hadii uu sameeyo switch off marka waa changing current baa la damiyay current muxuu sameyn doonaa decreasing from highest to the lowest ama from maximum to the zero uu yaraanaya marka current uu isbedelana EMF kuna uu isbedelaya marka EMF isbedelana current baa ku saaqmi doona coil ka labaad markii current uu sameeyo switch off EMF is induced wuxuu ku saaqmi doona EMF ku ku dhalanaya coil ka labaad in opposite direction mid ka soo horjeeda kii hore ee onka markii onka laga dhigay mid ka soo horjeeda current direction ka soo horjeeda in coil 2 ah secondary coil ku dhalanaya effectigaas wuxuu la mid yahay effectiga markii switch off la yiraahdo ee la damiyo switchka current ga dhalanaya wuxuu la mid yahay qaabku current uu dhalanayay coil ka markii magnet ka laga soo saaray hore buu soo aragnay hadii duub ama coil magnet laga soo saaro magnet ka soo saaraysid waxa ku dhalan doona coil ka current ga ku dhalanaya marka wuxuu ku dhalanaya goormu dhalanaya inta socodkaas jiro ee laga soo saarayo dhalanaya kana goormu dhalanaya marka inta switch off marka la yiraahdo magnetic field ki waxa ku dhici doona changing gaas wuxuu keeni doonaa inuu current ku saaqmo coil ka labaad laakiin current gaas wuxuu jeedaa in opposite direction wuxuu u jeedaa coil ki koowaad oo marka onta lagu sameeyay the effect is equivalent to pulling magnet away from the coil very fast wuxuu kaas la mid yahay markii coil ka laga soo saarayo ama duub laga soo saaro magnet si dhaqso looga soo saaro marka EMF ka si loo dhaliyo si joogto ah loogu dhaliyo DC current ga coil ka koowaad isticmaalayay oo marka coil ka koowaad maxay ku xirnaa battery-guna wuxuu soo saaraa direct current ga si isbedel lagu sameeyo waa in la sameeyaa switch on and off switch ka waa in lagu sameeyaa off ama on si isbedel u yimaado marka waa in switch ku marna off lagu sameeyo marna on lagu sameeyo si change of current u dhaco change of current markuu dhaco change of magnetic field u dhaco magnetic field ku markuu isbedelana coil ka labaad current ugu dhasho marka instead of DC current meesha adeegsanayay coil kayga koowaad ee primary coil ka booska DC current ku xiran yahay baa waxa ku bedelan kara AC current oo alternate current kana wax kala ma aha waa current flows in different directions marna wuxuu socdaa clockwise marna wuxuu soconaya anti-clockwise marna wuxuu soconaya clockwise markasta uu direction ka bedelo waxa dhacaya change of magnetic field markasta change of magnetic field ku dhacona waxa dhalan doona coil ka labaad current marka maxaa ka maarmaya coil battery ama switch-ki marna on marna off waxa kaga maarmi kara inaan DC current ku bedelo AC current bal eekaan waa kana sawirkan hoosna ku arkayna waxaan instead of using direct current meesha la isticmaalayo direct current in a primary coil ka koowaad si current ugu dhasho coil ka labaad waxa la sameyn karaa switching the current off and on current ina lagu sameeyay maxaa weeye si change u yimaado isbedel u yimaado magnetic field ku bedelo current ina ku sameeyay marna on marna off waxa same effect leh oo la mid ah ku gaari kara can be achieved waxa ku gaari kara with using AC power
inaan isticmaalo meesha DC power kan isticmaalayay coil ku bedelo AC power assume figure below diagram kan hooseeyo halkan battery waan ku xidhnaa battery wuxuu soo saaraa DC current direct current waxa lagu bedelay AC current flows in different directions marna wuxuu soconayaa clockwise marna wuxuu socon doonaa anti-clockwise markastuu current uu change samaynayo induce EMF baa dhalanaya markastuu current uu isbedelayo current-ka coil-ka koowaad markuu isbedelo magnetic field-ka coil-ka koowaad baa isna isbedelaya current uu ku xidhay magnetic field coil koowaad markuu isbedelo change of magnetic field jiro current baa ku dhalan doonaa coil 2 marka current marna wuxuu socdaa tusaalaan hadduu u socdo clockwise haddii marka koowaad clockwise u socdo magnetic field-ku direction-kaasi leeyahay dhankan ay u socdaan waxay goyn doonaan coil 2 wax ku dhalan doona current irbadu waxay samayn doontaa deflection kadibna misna isla second ka bacdi wuxuu samaynayaa misna isla second ki gudihiisa wuxuu samayn doonaa maxaa weeye direction kii wuxuu ka dhigayaa tusaalaan clockwise wuxuu ka dhigay maxaa weeye clockwise buu ka dhigay markuu clockwise ka dhigay magnetic field direction kiisu isbedelaya markuu isbedelona current wax ku dhalan doona induced current marka kanu waxa la yiraahdaa alternate current 50 hertz baa la oran jiray per second waxa la oran jiray waxa weeye halkii second waxa sameeyay 50 circles macnaha halkii second current-gaasu konton jeer buu bedelayaa jihadiisa ama sameynaya change of direction intaas ay maanta casharkana ku ekaanayna waana casharkii shanaad ardaydan waxaan leeyahay si fiican u dhageysta casharkan waa cashar aad u muhiim ah waxaana ku xiran casharka inoo xiga ee ah transformerka. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.